mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad inta waxay raacdaa waxaan ka soo jeedaa kolley gobolada bariga ee Soomaaliland jagada xogayaha guud ee xisbiguna ujeedada loo magacaabay iyo culayska leedahayna waan garanayaa waxaa la doonayaa inaan la imaado dadaalkeedii iyo miisaankeedii laakiin waxaan ka codsanayaa madaxda xisbiga iyo taageerayaasha xisbiga ee gudaha iyo dibaddaba daacad baan doonayaa inaan ku shaqeeyo lilaahi niyad baan hayaa waxaan doonayaa inaan xilka iguna ducaysaan iguna la shaqaysaan iguna fududaysaan waxaan ka mid ahaa raggii ilku kaga daateen kulmiye dhowr iyo 10 sano sidii aan u wadnay Axmed Silaayo ku saaray kadib waxbarasho iyo shaqo iyo waxaasaan ku jiray waxba uma doonaan kulmiye aad baan ugu faraxsanahay inaan maantana u imaado laakiin aan idin yar idin la kaftamay markii aanu saaraynay kulmiye Axmed Silaayo naf iyo maalba waxba isku lamaanaan hadin naf iyo maal waxa la waxaan isku leenahay jirin ismaanaan tabi jirin jeebkaanu furi jirnay ucid baarti aad baad deeqsiin u tihiin historygiina waan hayaa waxaan rajaynayaa inaynu u diyaar garowno halgan dheer iyo wada dheer taana lagu heli maayo ama saxabis ama lagu heli maayo waxay u baahan tahay adkaysan iyo karti iyo raganimo ayay u baahan tahay waxay hor yaallaan aniga naftayda hawlo badan aniga xogayaashayda waxyaha iyo inta xafiiskayga hoos timaada hawl adag baan loo taala waxaan doonayaa inaanu dardar gelino oo qaab firfircooni oo nidaamsan inaanu sameeyno isu diyaar gareyno sidii aynu xisbul xaakim aynu u noqon lahayn sidii horeba loo sheegay taana idinka taageeradayna baanu ku helaynaa laamaha dibaddana waxaan ka codsanayaa markaan idinku imaado Denmark iyo Sweden iyo Germany ama Europe iyo waqooyiga America iyo Africa markaan idinku imaado haddii ilaahay maanu xogihii guuda oo hawlihii xisbiga u socdo inay i fududeystaan baan doonayaa si aynu guul u gaarno waxaan idin sheegayaa fikrad baa jirta dadka qaar aaminsan yihiin oo la leeyahay gobolada bariga sida Burco bari Saraar Saaxil bari Sanaa galbeed Buuhoodle galbeed dadka deegaanka diga fikradda xisbi bay u xidhan yihiin ama ay codsiinayaan kulmiye la yiraahdo oo ay kooto ugu jiraan fikraddaas waa been deegaanka ugu ballaaran ana ka soo jeeda dadkii oo dhamma diyaar weeye laakiin waxayna leeyihiin uciday waxa tii xisbi mixilo Soomaaliland oo dhan ka koobane maxaanu kaga kaaftoonaa xisbiyada kale oo aan codad ku siinaa su'aashaas inta ugu badan markan gobolada bariga mariyay la weydiinayay taana waynu ka jawaabi doonaa insha Allah waxa ama baabuur badan hal la qaato xisbiyada kale ha ku tageen ama ha ku noqnoqdeen laakiin marka xaqiiqada jirta waxa weeye dadkaasi isbedel bay doonayaan indhahoodana way